warkalamaanay ciroon koday daruur carisay iyo cimilo roobaysan jiilaal daba abaar diiratiyo dunya soco weyday dowladnimo nalkeed iyo nimciyo shacab naruuraysan fawda iyo fadqaliliyo fidniyo aadmi kala fiigay jacayl beerka taabtoo biyeeye badarba kuu diida nacayb jaakad weyn oo jarciyo jiinkad huganaya si daacada qof iyo dooq dadkoo doorta madaxdooda jiira iyo qallooc iyo nima qiilu raba joogid hee iyo warbadi lama rabiyo hadal tanaagaahe reer magaalku waa inuu fahmaa baaqa farahaaye adduunyadan haddeeroo dadkii uu aqligu waalay madaxweynenimo waa rabaa ruuxii helayaaye aniguna ma diideen haddaan danu iseetayne malxiiskii abaroonaay haddaan beenta la hurayne madaxow dad qaba walax kastaa laga malaystaaye gabar waraab u taag noqotayaa dhiiran oo falane dibna iima aragteen haddii duubka lay xiroe taleefoonka waa liqilaa maca laftiisiiye cabdulle iyo abwaanguure iyo kooxdan kalamaana inay ii codeeyaan maxaa loogu kari waaye qorrax joog may ii qabaan aan qurbaha aadin goormaa lacagta u keenayaa le'atay loo sheegay yaase walax kastoo aan qaraageeye quracooda ha fajicina hadalkan waa faashiyoon gabay ojoylo ooyow oryow odyaydii biday fadaaseeda wartiyama waa dadaashay waxaadse ka tagtay ismaqiiq isjooxaaris isla weyni iskala geyn iskala fogayn iyo iskala tuur cabdikuusow saaxiibow ku qaadanoo anigu waxaan dhihi lahay haddii la isku eeday lahay ficil la soo dhaafay ama ruux dembiilaa xilsale laga mamnuucaayo soomaali lama heli lahayn jaga u doodaahe nin xantiisa mooginuu jiraa waa barkumataale sidee baan u maaray karnaa shaqada noo taalla samsoy waxaad tahay gabar wax garade haddii raggu kaalintoodii galeen xilka adigana kuu dhiibnaa warsheelarow arrintaasu ma xumee ma lagula qabaahe war aan hal ninkugu dhiibtoy tala bilaamad jiidnadan damboyta dheegi jiray warmadeeyow sidaad sheegtay doorashadan ajoylo ooyow oriyow edshay dhiibadii maraysaahe waxaan dhihi lahaa codayn aan lagula wadin wakhtigaagayay lumin warnimayow damanayaal baa tihiin warna iskama haysaane waxaa la yidhi dhulka kuma istaago xidid kuma dhex yeeshee dhillowyahanku waa geed ka dhakoola geed kale aryaab gaboosow sidii faysal cali waraabicay guubaabaha nooga dhigin codayn aan lagula wadin wakhtigaagayay lumin warnimaya ayaamahan warigama haysaane iyagoo indhaha soo xirtoon cidi aqoonaynin argagixisadii baan ka baqay inay i doortaane codayn aan lagula wadin wakhtigaagayay lumin warnimada waxaa kaloo la yidhi aqligaa defera ruux haddow kaa dabaal yahaye dadkiisa waxaa lagu diraa degeladiisiiye dammanahan wax garan ee war moogyaa dibbi u hay ma heshiin weydeen cabdikuusow saas wax ku heli mayside codayn aan lagula wadin wakhtigaagayay lumin war waxaan dhihi lahaa doorashadan la soo doortay ee yaabka lagu doortay ergaduna afkii duubatay ee daaha soo xiratay waxsan dooran maayaane allow yay ka sii darine aryaa sheelarow inta kale horay u quusteene adiguna beriga ma dayraad ka wadaa cabdullow codayn aan lagula wadin wakhtigaagayay lumin war bilaashaan alaasana ojoylo ooyow oryow aman dheere odeeyey koonfur galbeedna oo aad maaka weerne odayn aan lidin la wadin wakhtigiina yay lumin war waxaan idin weyddiiyey garta laba dhex taallaa garsoorayaashiyo guddidii hal dhinac tahay xaq miyay guddoonshaan aryaa gaboosow cadaalad mudici loo dhiibay walaan khayr laga sugayne codayn aan lagula wadin gaboosow wakhtigaagayay lumin war suldaan gaboosow jenaraal cabdalla wuxuu yidhi boqor buurmadow ayaantan waxa loo xagxaganayo waa siyaasada hal eray oo qalada ma sheegin hawsha uu wado dad ka soo hor jeeda oo siyaasiyiin ahaana buunbuuninaya abdalle fadwoodii widaay warwar ma haysiina haddii ekraan hooyadeed qaali guhaad ay dhihi jirtay cadaaladaan rabaa hadda sakariya iyo sawdo hooyadood waxay tidhi cadaalad kuwii iga horreeyaa waaye anna sugi maayo ee ilaahay carruurtayda xaqdarrada lagu dila sabar iyo iimaan hayga siiyo marka halkaas waxaa iga soo baxay ummadda soomaaliyeed inay cadaalad ka quusatay war kalamaanay madaxda soomaaliya waxaan kula talin lahaa ummaddu hadday quus istaagto intay qaraxday furka tuurataa waxaan la filayna way ka yimaadaan marka inta xaalku dhowdhowye wax faraha ku jiraan sida wax laga beddelo allowga boose taliyaho lagaalow warnimayaho war moogaatiin wax sanna dhegihiin uma maqlaane sawda iyo sakariya askartii dishay gacantaa lagu soo dhigay taliyaha xoogga dalka jenaraal odowaana wuxuu yidhi askartaasi waxaan ku wareejinnay maxkamadda ciidamada laba xidigle mahad cabdiraxmaan oo sawda iyo sakariya ka dambeeyeyna raggii dilay gacantaa lagu hayaahaa la yidhi
marka haddii cadaalad hore la waayey haddaa la heli doonaa hesuga war dilalkaa dambe ragga lagu eedeeyey xasaanad ma lahan miya warwar ma haysiina dhallinyaradii bajaajleyda ayaguna waa dhibban yihiin ummaddiina waa ku dhibban tahay laakiin waxaa la yaab leh askarta oo jidku markuu cidhiiri noqdo rasaas ku furta bajaajleyduna waxay dhaheen cabdibilaah baabuurka layidhaah iyo waxa saarana noogu daran ayaana ka tashanaa ma yidhahdeen bajaajleydu horta baabuurkan cabdibilaha la yidhaahdo dadka kuwa u xishoodka daran miyaa loo xula inay ku shaqeeyaan abdabaaluha horta mas abdibiluu madayow anugu kuma fahmine baabuurta dawladda waxaa loo bixiyey baa la yidhi iga har iyo iga hor wareeg bajaajleyduna labadaasay u dhexeeyaan aryaadhaha tanu horay u badatee iyo shib naga dhahdiin ka heer iyo ka hor wareeg haddii la keenay waalaag ka heer iyo ka hor wareeg haddii la keenay waalaag war bajaajleyda dadka raaca waxaa tala siiyey beeldaajo galaal war khabiir dhinaca bajaajka miyuu ahaa war waayeelka ula taliyey warkiisa wuxuu ku bilaabay waxaad raacdaa bajaaj uu wado darawal daadiisu meel dhexaad tahay 25 sano iyo wixii ka badan ha raacin bajaaj muusig ka daaran yahay sababtoo ah waxaa dhici karta ninka wada inuu maqli waayo amarada ciidanku siinayaan sidaasna risaas loogu furo haddii bajaaj aad saaran tahay darawalka uu si xowli ah u wado u sheeg inuu tartiibiyo haddii uu kaa diidana ka deg haddii bajaajta aad saaran tahay darawalka wada iyo askari murmaan intaan afka xumaanin ka deg sababtoo ah carada askariga xabadaa ku xigi karta haddii bajaajta aad saaran tahay ay gasho meel mashquul badan ka deg oo mid kale ka qabso haddii bajaajka aad saaran tahay uu kula aado wadda aan ahayn middii aad taqaanay ka deg hana ku qancin inuu kaa dhaadhici inuu kala yaqaano magaalada marka gundhiga hadalku waa taxadar dadka bajaajta wadaa ilan xilkas ma wada ahee warwar ma haysaane midowgii musharaxiinta shiraha u furmaa layidhi ay dawlad ku dhisayaan wargolo qaran oo dalka doorasho gaarsiiyaan dhisaynaabay dhaheene maxaad u nabaysaa odayaasha wargaboosow adiguba dulmiyaad uxiiqayah oo looma doorane codayn aan lagula wadin wakhtigaaga yey lumin waradhahay laydinma warrami kara waxay kaloo dhaheen musharaxiintu ciidankii badbaado qaran oo aan beledka ka saarnay inaan dib ugu soo celinnaa ka mid a arrimahaan ka wada hadlayno maadaama xaaladdu xumaato harkii laysboobayo oo haddama waxay golaha u dhisanayaan inay doorashada barbarkooda ka boobaan barbarkii ka baxdaa waa bakeela galeen miyaad maqli jirin codayn aan lagula wadin wakhtigaaga yay lumin warnimo aniguna waxaan leeyahay hadday cirib jeeni dhaafto waxaad inay jabtaahe adoo socodkii ka caaga ninkii orod kugu canaantay waxaan gara waayey caynkow cadaaladda uga badbaaday calaama su'aalka saaran shamsoy golaha ay dhisayaan midowga musharaxiinta ee badbaadada qaranka haweenka qoontadooda waluu dari doonaa heesug war dilalku way badan yihiin allahana badbaadiye magaalada beled weyn oo al-shabaab madaafiic ku garaacay qoys dhan baa madfac ku habsaday baa la yidhi 3 wiil waa dhinteen 2na waa dhaawac baa la yidhi magaalada laascaanoodna ciidamo rasaas ay rideen 2 wiil baa ku dhintay baa la yidhi oo gaari saarnaa ceebta muqdishona wiil maydoo jirdil ka muuqdo oo baddu soo tuftaa lagu arkay baa la yidhi kolka dadkaani difaac iyo daryeel midna ma hayaane ilaahay ummaddiisa ha u gargaaro aryaadhaha ummaddan ilaahay abuurtay ha u maqane samigay cabdulle wuxuu yidhi ow qof walba wixii ou qabta qaamuuska loogu sii qoraa qof walba wixii ou qabta qaamuuska loogu sii qoraa abdulo aan waliba dheegi jiray geel waa dhicis gacan walbana waxay geysata way leedahay warmadayo aniguna sharifka cabdulle waxaan ku xasuustay qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimayaa warwar ma haysiine big brother abiy axmed xaaji cali iyo intinahe waa guulaystay TPLFT adisaa qabsayna dhahaysayna maqalla gacanta looga dhigi rabaa iyo intinahe iyo Itoobiya gabamaanta mingiste iyo Tigreeya hidalo allo arwaa la gacan gala goorma geedka kala maana amxaarad u qabsatay TPLF yelam aryaadaha anigu oromaya Tigreeya amxaara kala ma jecliye iska yelamlayso TPLF waa tiliqa hayehe hadda la yaqanto waryaada war ma haysaane dalkeenni iyo dadkeenni col iyo abaar baa qaybsaday ummadaha fakiraana waxay leeyihiin qaab ahaan abaarahan markii la fiiriyo dadkaa sabab u ah maxaa yeelay waxaa la ogaaday meeshii dhirta laga xaalu
buufiyo roobku inuusan ku di'in war abaartiiyo masiibooyinka dhacaya innagaa gacmaheenna ku keensannaye xaqii baad ka wada gaabiseen gudashadiisiiye gefki aan samaynaa batiyo godobaheenniiye gubatadu inay galabsi tahay sow la garan maayo wargabooso waa sidaad u sheegtaye dhulka geeska laga jaro dhuxul badanna laga gubo soo dabayl dhacaysiyo dhamacdii abaareed kuma soo dhacayso nabaadguurku kama dhalan aryaadhaha heestaaline gu'iya dayrba waa geefno waxaan guumaadnay geedihii gu'iya dayrba waa geefno waxaan guumaadnay geedihii war ummaddu hadday dhirteeda shirato dhul bannaan ay ku soo hirtaahe dadka maxaa u diiday inay gaaska shitaan warnimayaanu waxaan la yaabanahay dadka raba inay xoola dhaqdaan dhirtiina jarayoo gubayo dhulkii xaalufiyey war abaarta allah naga bixiyo laakiin caqlixumadeenna u sababahe dhirta waxaa arlada looga dhigay qurux iyo dhaaraane waana dheefta noolkaan dhaqniyo udub ma dhaafaane cimiladana wow dheelitira aad u dhumuc weyne waxay iyadu dhaantiyo adoo dhuxul ka doonaya masaar kula dhaqaaq waa dhib iyo dhohli saa'idahe dhammaadkeedu dhungooyo iyo dhimasho weeyaane haddii aan la dhowrinay bulshoy dheeha laga qaado dhacmo iyo daruur iyo cirkaan dhibe ka hoorayne abaarahana taasaa dhashiyo dhammacda jiilaale dhaxan baa timaadiyo qabow dhuuxa kaa gala dhulkeenniyo dhaqaalaha si aan dhaawac ugu diidno waa inaan ku wada dhiirranoo dhimin shaqeeyaaye qof walbow ka dhigo gaas qoryaha kaaga dhaxal rooni war ummadda soomaaliyeed anigu waxaan dhihi lahaa haddii la gooyo geedka weyn garaad lahaa u cirkaa gure taladaadu way fiican tahay maanta wixii ka dambeeya gaaska aan isticmaalno dhuxul ha isku gadan war waxaa la yidhi dhul arraday abaaraha ka dhaca oon dhirba lahayn daruurtaana dhaaftaa la yidhi dhoodigii maran hogoshii dharoortaana waa dhinac maraysa war dhirta la jara iyo dhiigga xaqdarrada lagu daadinayo labaduba sabab bay u yihiin abaaraha dhacaya war horta ugaartii soomaaliya nabaadguurkay ka mid tahay goormay u dambaysay war dad ayagu isla noolaan waaye sidee baa dabjoog iyo duurjoog ula noolaataa aryaadhaha anigu warkiyoor kooban waxaan dhihi lahay dadkeenna abaarta dalkeenna abaarta daruura ku hora allow ugu doori dalkeenna abaarta daruura ku hora allow ugu doori dalkeenna abaarta daruura ku hora allow ugu doori